og wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah og wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ujeedo shaqo ka joojin wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Mukhtaar Mahad Daa'uud ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99aad xarfihiisa a ba e iyo i ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya markuu arkay qodobka 100aad xarfihiisa a ba iyo da ee dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliya markuu arkay in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu aas-aas u yahay ku dhaqanka dastuurka xeer hoosaadka golaha wasiirada shuruucda iyo xeerarka u yaala jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayna ku shaqeynayso daahfurnaan isla xisaabtan iyo dowlad wanaag ku salaysan barnaamijka xukuumadda ee qorshaha horumarinta qaranka markuu tixgeliyay soo jeedinta hanti dhowrka guud ee dowladda markuu garowsaday muhiimadda in la guun gaaro dulucda murtida eedaynta lagu soo oogay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda wuxuu meel mariyay shaqo ka joojin laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 9 bisha August sanadka 2018 waxaa shaqada laga joojiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Mukhtaar Mahad Daa'uud si hay-adaha isla xisaabtanka iyo sharciga oo ay ugu horeeyaan hanti dhowrka guud iyo xeer ilaaliyaha guud ay waajibaadkooda ugu gutaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka warqadan waxaa ku saxiixan ra'iisul wasaaraha